waxaan doonayaa caawa wax ka ilaahdo hadal ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Somaliland mudane Axmed Yuusuf Yaasiin oo warbaahinta aan ka maqalay hadalkaas oo uu kaga jawaabayo hadal uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli uu sii daayay oo ku wajahnaa Somaliland inay tahay gobol ka mid ah Soomaaliya midnimadiina ay ku soo noqon doonto run ahaantii madaxweyne ku-xigeenku hadalkaa Cabdiweli kamuu jawaabin laakiin waxyaabo kale oo aan muxuu ahaa kulley warbaahinta aan ku qurux badnayn ayaa muxuu ahaa ayuu ka dhawaajiyey مثلا haddii aan ka soo qaado wuxuu madaxweyne ku-xigeenku caddeeyey oo uu ku dhawaaqay uu yidhi magaranaysaa haddii Somaliland cid Soomaaliya laga maqlo ama federaal ama Soomaali weynba laga maqlo xasuuq ha u diyaar garowday buu maxamed cabdilaahi obsiye waxa uu caddeeyey in ayna jirin beel Soomaaliyeed oo aan dadkaga dhiman dagaaladii sokeeye ee burburkii Soomaaliya waxa kale oo uu sheegay in gooni isku taagga Somaliland loo baahan yahay in hab farsamo iyo aqli ku dhisan loo daafaco isla markaana ay daruuri tahay in la iska jiro weer kasta oo nacayb iyo kala fogaansho keeni karta markaan taariikhdii hore leeyahay waxa weeye burburkii Soomaalida marka laga soo bilaabo dawladdii dhexe Soomaaliya marka meesha ka baxday wixii ka dambeeyay ee colaad sokeeye in dalka ka wada dhacday muxuu cid walba way ogtay beel kasta oo Soomaaliyeed oo aanay cid ka dhimanin ma jirto beel gaar ah oo si gooniya wax uga dhinteen waxaan u maleynayaa inaanay jirin marka hadalkaas muxuu ahaa colaad abuurka ah oo hanjabaada ah waxaan u maleynayaa in laga qurux badan yahay oo muxuu ahaa ay ka wanaagsan tahay haddii lagu yiraahdo muxuu ahaa midnimadii Soomaaliya ka soo noqo waxay u baahan tahay aqli iyo farsamo aad uga hadashid ama aad waxaaga u sheegatid laakiin uma baahna inaad tiraahdo muxuu ahaa waxbaan dilayaa sina aad bay ugu badan tahay yani Somaliland gaar ahaan yani beelihii ka soo jeeday SNM khabiirka bangiyada iyo xisaabaadka maxamed cabdilaahi obsiye waxa uu su'aal ka keenay cidda loo raacayo dadkii ay xasuuqday jabhaddii SNM sida uu hadalka u dhigay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Somaliland waxa uu ugu baaqay in uu isagu dusha u rito wixii ka dhashay khudbadiisii hanjabaadda xambaarsanayd waxaan oran lahaa madaxweyne ku-xigeenku oo soo jeedinaya inuu hadalka noocaas wixii ka dhasha ee fidma ah yani in isagu muxuu ahaa xilkeeda inuu qaadayo sida laga warqabo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Somaliland Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa maalmo ka hor ugu baaqay ciddii reer Somaliland ah ee federaal iyo Soomaaliya u hanqaltaagaysa inay xasuuq u diyaar garoobaan oo aan cidnaba loo arxami doonin Zakariya Xuseen Qulle telefishinka Royal Riyadh